السلام عليكم صاحب يال سوري waxaa soo dhaxgalay insha Allah bin alkarim caawa waxaa ka hadli doono waxuu noqonayaa ciwaanka noogu muhiimsanaa ciwaankaas oo uga hadli doono interest-ka iyo qaabka interest-ka iyo qeybaha oo labada qaab oo interest looga qaadan karo markii la isticmaalayo istiraatiijiyadeenan smart money-ga ama supply and demand dhalinyaro si qofba si u yaqaano marka saaxib yaal waxaa rabaa waxa weeye intriga lagu sheegayo ma aha wax cusub ma aha intriga lagu sheegayo waxa weeye waa wixii aad soo intii wixii hadda habeenada dhawaato aan soo sheegay oo ahaa inaad trendigi soo fiiriyo kabacdi OB ama supply zone-kii aad fiirsado kabacdi aad confirmationskii habeenkii u dambeeyay aad sharaxay aad suuqa ka fiirsado kabacdina suuqa entry ka qaadato intaas un way marka waxa laga rabaa waxa weeye inaad isku xiri kadib trendi ilaa aad trade qaadanaysid trendigi ilaa suuqa aad fiirinaysid ilaa aad trade suuqa qaadatid marka horta markii trade istiraatiijiyada la isticmaalayo waxaa jirta laba qaab oo trade loo qaato labada qaab oo trade loo qaato waxa weeye midda koowaad oo ah suuqaan horta sidaas caadi ah marka suuqaan la fiirino suuqaani wuxuu ku socday suuq wuxuu ahaa ku socday down trend aaday buu ahaa suuqaan down trend buu aaday wuxuu sameeyey low uu sameeyey halka low high uu sameeyey that means haddii suuq laga arkay low high waa down trend soo haddana muxuu sameeyey new low uu sameeyey new low high uu sameeyey okay new low uu sameeyey marka new low uu sameeyey wuxuu ii sameeyey haddana new low high okay so continuation trendigan down trend usoo socdo maxaa la rabaa inuu new low u samaysto soo maaha new low muusan samaysan muxuu samaystay marka halkaanu low cusub samaystay lowgii hore gaarin that means weli suuqaan waa down trend muxuu jabiyey marka meeshaan ay ahayd change of trendigi meesha ka fiirsanayo okay suuqaan muxuu isku bedelay marka suuqaan oo kusoo socday markii hore down trend kusoo socday muxuu isku bedelay markaan up trend isku soo bedelay sababtoo up trend isku soo bedelay waa maxay sababtoo ah suuqaan the last low high u dambeeyay wuu jabsaday muxuu samaystay new high uu samaystay that means kana maxay noqonaysaa halkaan waxay noqonaysaa high low ay noqonaysaa high halka ay noqonaysaa high low ay noqonaysaa high baa haystaa high low high okay suuq marka waxa aan rabno waxa weeye halkaan marka inaan si faahan u baahana waxa weeye markii aad trade ka fiirsanayo suuq ku soo socday suuq uptrend u soo socday suuqa ogahay inuu suuqaan yahay suuq uptrend ah oo u jeedo laakiin aad ka raadinayo fursad sell ah suuqaas oo kale see trade-ka oo qaadanaya xageesa ka fiirsanaya okay trade-ka qaab kale waxa jira suuqa uga trade garan karo oo ah suuqaan markuu uptrend-kan ku socday inaa ka raadiyo fursad buy ah inaa ka raadiyo fursad buy ah inaa ka raadiyo taasna waa laba qaab marka waxa la rabaa waxa weeye labada qaab maxay ku kala duwan yihiin seesaan qaabkee baan trade labada qaab loo kala raadiyaa okay marka horta qofku markuu isticmaalayo marka horta xaggan insha Allah chartigan waa in ka tusiyaa labada tusaale oo isku xiran chartigan ka tusiyaa okay marka labada qaab qaabka u horeeyo oo ah reversal trade-ka xagee liquidity-giisa laga fiirsanayaa halkee supply zone-kiisa laga fiirsanayaa halkee mitigation-kiisa laga fiirsanayaa waa u baahan inaan ogaano soo maaha horta qaab noocan marka u tiragelinaysid marka qaabka noocan u tiragelinaysid oo reversalka ay isticmaalaysid waa inaad isticmaashaa marka u yadhahay 1 hour structure waa inaad isticmaashaa that means 1 hour structure-ka kuu sheegay waxa weeye supply zone-kaaga liquidity-gaaga mitigation-kaaga kulligood waxaa trade ka qaadanaysid waa inaad 1 hour structure isticmaashaa okay marka suuqa continuation-ka asna ka tiragelinaya waa maxay maxaa ka raadinaya asna waxa isticmaalaya wixii ka yar 15 30 ilaa wixii ka hooseeyo waxa ka raadsanaya liquidity-gayga mitigation-kayga supply zone-kayga xataa 1 hour markii kan aad joogo markii supply zone-ka 1 hour laga samaysan karaa laakiin liquidity-ga xagee laga fiirsanaya weeye liquidity-gaani ama waa inaad 4 hour ka heshaa weliba 4 hour iyo 4 hour israaci waa inaad ama 4 hour ka heshaa ama 1 hour structure ka heshaa
halka kan aan kala ka raadinayo maxay 15 ama 30 minute structure ka raadinayo marka suuq korka aan raadinayo marka suuqaani maxaa raadinaya marka shuruucdu maxay ahayd marka shuruucdu waxay ahayd suuqan muxuu ku soo socda sharciga koobaad aan raadin jirnay waa maxay liquidity waa inaan helnaa kow waa inaan suuqa liquidity suuqaani up down trainka kusoo socda marka soo socday iyo up trainkan dhexdooda waa inaan ka helnaa meel liquidity ah oo suuqaan la cuni karo oo suuqaan si fursad ah meesha oo korkeeda uga raadino liquidity marka aan helno kabacdi maxaa ku xigo waa inaan helnaa mitigation waa inaan helnaa mitigation marka aan helno kabacdi maxaa ku xigo mitigationkaasi waa in korkiisa aa ka helaa mitigationkaasi meesha uu jabsay korkeeda waa inaa ka helaa supply zone waa inaa ka helaa supply zonekaas aa korkaa ka helayna markaa supply zoneka uu tago markuu supply zoneka uu tago waa in aa helaa counter trend break waa inaa helaa marka counter trend breaking halkan xagee ii ahayd halkaan ay ahayd halkaana maxay ii tahay counter break counter break waa maxay marka counter break waxa weeye waa change of trend iyo lacagtaasi aa ka fiirsanayo haddaa one hour ka fiirsanayo one hour waxa laga yaabaa in meelahan oo kale ii yahay change of trendigi one hour okay one hour ka fiirsanaya change of trend ku dhaco kabacdi baa trade OB wax la dhaho cusub oo entry ama OB ama entry waxa rabtaa ku qoran karaa ba entry meel la dhaho qoranaya marka kaas waa nooca marka ay isticmaalayo change of trendigi weyn oo for hour iyo one hour ba isticmaalaya ka yarka ma soo degayo okay kana liquidity-gaygan iyo mitigation-kaygan iyo content trend bring-gayga wax oo dhan maxaa ka fiirsanaya 15 minute iyo waxaana ka fiirsanaya low time frame baa ka fiirsanaya kabacdi baa trade qaadanaya okay tusaale cad baa u tegaynaa marka si aa u fahantaanba tusaalo change of trend ah baa u tegaynaa lacagtaan oo kale change of trendigeeda markuu dhacayay baa rabnaa inaan soo helno maxaaha isheen inaan soo helno sababta meesha change of trendiga ka dhacay okay meeshaan oo kale change of trend for hour niyada maxaa nidhi change of trend oo high time frame meeshaan suuqaani halkan waxa hadda intuu seeyay baa waxa rabaa inaa caadi ahaan miyadso halkan suuqaani muxuu ku socdaa suuqaani saa u wada jeedno annaga dhan muxuu ku socdaa up trend buu ku socdaa muxuu ku socdaa suuqaan waa suuqa u jeedno oo up trend ku socdo muxuu samaysanayaa wuxuu samaysanayaa suuqaani muxuu samaysanayaa waa low of market halkaana muxuu ahaa the last low high uu ahaa waa la jabsaday dal minjada that means muxuu markuu jabsaday halkaana waxay noqonaysaa low high halkaana high high bay noqonaysaa high low bay noqonaysaa yani high 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 low high 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 low high high that means suuqaani muxuu ku socdaa suuqaani sida guud muxuu ku socdaa up trend way that means suuqaan up trend ku socdo baa waxa rabaa inaa helo fursad change of trend ah inaa ka soo helo qofka sharax ku qoray fadlan kada qofka sharax ku qoray ka tiri haduu ka tiri karo saaxiba ka tir ku dhig saaxiba qof ku qoray ka tir okay marka lacagtan maxaa niri si uu jeedno lacagtan up trend قادني ما لها فيديو مسمينها ما نقص lacagtan saa u jeedno maxaa niri lacagtan waxay ku socotaa up trend ku socdaa tradekan maadaama uu up trend ku socdo oo high 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 low high high up trend ku socdaa okay marka change lacagtan baa waxa ka fiirsanaya change of trend baa ka fiirsanaya okay lacagtan change of trend waxa u horeeya u baahanay waa maxay waxa xagan sharciga ku qoran waxa koowaad aan raadin suuq ka raadin waa maxay halkaas ku qoranna waa maxay waa liquidity waana liquidity helaa qodobka labaad aan raadinayna waa maxay waana helaa mitigation qodobka saddexaad aan raadinayna waa maxay waa counter trend break waana helaa ama sida dhalinyaradu yaqaanaan break of structure saddexda qodob waana helaa si aan entry u raadiyo okay marka u horeey maxaa lacagtan meesha ay marayso maxaa ka fiirinayaa halka u horeey marka waxa koowaad aan raadinayo waa inaan helaa at least waa inaan helaa break of waa inaan helaa liquidity okay
halkan liquidity may noqon karaa meeshan haddii at least yes maxaa haystaa liquidity qurux badan baa haystaa almost kan bibs fiican buu kasoo dhaaqay tana toos buu usoo daata oo uga soo daata meeshan lagana yaabaa inaa meeshan xataa meeshan oo kale xataa inay kuu noqoto liquidity marka anyway halkaas ba nooga dhig xataa liquiditygan inkastoo halkan si fiican aan looga celin laakiin meeshan hadduu qad caadi uga daatay tuxoga ka daatay some bibs uu ka daatay su-aasha ah hadhow qof laga yaqaan weydiiso ah liquiditygu intee la rabaa inay ka daadato khasab ma aha intii raba ka daadan kadhaa liquidity muhiimadu waa meel suuq intuu yimaaday laga ceshay mar labaad uu kusoo noqday uu noqon kara hadda waxaa joogna waa high time frame baa joognaa haddii meeshan la fiirsho intuu ka daatay meeshan haddii la fiirsho suuqa meeshan orderska laga qaatay almost wuxuu ka daatay ilaa 25 bib buu ka daata marka waa meel order fiican laga qaatay wey okay marka halkaa markii marayso waxa koowaad ay helay waa maxay liquidity baa helaa liquiditygigan ma la jabsada liquiditygigan waa la jabsada okay liquiditygigan waa la jabsada oo dhaqaaqaana jabsaday dhaqaaqaan markii liquiditygan is dhicin marka meeshan aad sawirto inta aysan liquiditygan dhicin markii uu mitigationka u dhacay halkan marka maxaa meeshan ma ka helayaa supply zone meeshan ma ka helayaa supply zone waa ka helayaa meeshan kan kul hadda sano umaleynaya meesha supply zone ay noqonaysa iyo meeshan ay noqonayn intii la fahansan yahay halkan maxay noqonaysaa marka supply zone-kii noqonayso halkan maxay noqonaysaa supply zone-kii noqonayso okay marka halkan saa uga jeedin almost waxaa ka aragnaa inay tahay imbalance inay ka jiro marka halkan marka igu qor liquidity emoji in liquidity meesha ay tahay liquidity liquidity meeshan iguma jirin miya waxaan daalin liquidity meesha ayaa idhah liquidity korka meesha maxaa igu jira liquidity waa ii taala soo okay halkaana waa maxay supply zone-keygii weeye waa maxay waa supply zone-keygii okay maxaa haystaa waxa koowaad aan raadinay waa maxay waxaa ku yiri liquidity waa inaa helaa kabacdina mitigation aa helaa liquidity-gii iyo communication korkoodana waa inaa ka helaa supply zone ama demand zone haddii hoos joogaan waa inaa demand zone ka helaa marka halkaan oo kale markuu suuqu marayo lacagtu markii tabtaa marayso halkaan marayso laba mid ba adi lagaa rabaa halkaani sometimes waxaa dhacdo in suuqu uusan gaarin supply zone-kan meeshan ka sugayso uusan gaarin uusan meesha dhexa kasoo noqdo laakiin haddii intuu meesha saa u yimaado aragti intuu ka noqday asdhahdid ka warran lacagta amay ku dhaaftaa oo meelahan trade ka raadis ka warran may laakiin haddaa intuu mar uu yimaado uu daato mar labaad haddana usoo dhowaado uusan gaarin laakiin 80% suuqa meeshan OB-gan ma buuxsanayo laakiin meesha uu marayo ka daadanaya okay lacagta marka noo marka maxaa u baahanaa marka waa inay mar labaad meesha ama noogu dhawaataa ama noo tagtaa hawarka ii tag marka hal meel baa rabaa marka suuqaani uptrain halkaan wan hawarkan ku socdo uptrain ku socdo waxaa rabaa inaa marka sii ogaado meel kasta oo ii ah aniga meesha marka suuqaan had marka meesha marayo halkaan maxay ii tahay waa high of the market bay ahayd marka that means new high of market baa dhacay sababtoo ah
suuq kanalada ka dhex baxeen that means suuqani hadda meesha new high of market oo xisaabsanaya on hourka markii la joogo okay marka maadaama un high of market halka uu xisaabsanayo halkeeba ii noqonayso the last low high u dambeeyay ama counter brinking halkee ii noqonayo the counter brinking waxa ii noqonaya aniga meeshaan ii noqonayso sababtoo ah dhaqaaqan meel wax jabiyey oo meeshaan jabiyey lowgiis waa meeshaan marka ii noqonayso dadka qaar waxa laga yaabaa inay meeshaan dhigan lahaayeen ama meelahan ay dhigan lahaayeen laakiin aniga meesha ii noqonayso meesha sababtoo wax xisaabsanaya dhaqaaqan wax dhaqaajiyey oo intaa wax soo dhuuqan meeshaan jabiyey dhaqaaqan xawo ka soo bilaama okay marka halkan maxay ii tahay waa break of structure-kii ii tahay haddii marka suuqaas shardi ama waa inuu meesha ii tagaa oo intuu low high halkan igu sameeyo new low ii sameeyo new high high ii sameeyaa hadduusan dhicin inuu new high high ii sameeyo uu dhacdo inuu meeshan lowgeygan soo jabsado ay dhacdaba inay saan uu dhaco oo suuqu meeshii la rabay inuu saan intuu nasasho sameeyo inuu korkan OB-gii toos u tago ama supply zone-kii wax u taqaano toos igu tago ay dhacdo inuu saa sameyno oo asagoo new high sameysan uu meeshan soo jabiyo that means suuqaani meelahan entry ka raadinaya aniga okay marka maxaa halkan ii calaamadii halkan maxay ii tahay break of structure bay ii tahay okay suuqaan noqon marka two same highs buu sameeyey that means suuqaas weli ma jabsan maxaa dhacday marka maxaa la ii jabiyey almost boodiyada suuqa boodigiisa halkaas ahaa almost suuq kanrada caadi jabnin caadi u sameeyey anigu aan saan ii sheegay xisaabsada qaabka u xisaabsadan beriga waa qaabkan okay marka suuq markuu intaa sameeyey marka maxaa ka hela suuqa waxaa ka helay kow waxa koowaad oo ka hela waa maxay waxa koowaad oo ka hela waa maxay liquidity kabacdi waxaa helay mitigation baa hela mitigation markaa helay liquidity-na aa helay maxaa kaloo raadinaya marka counter break baa fiirinaya marka counter break aa fiirinayo waxaan waa high time frame change of trend high time frame aa fiirinaya soomaha waa inaa high time frame counter break-iga xataa ka raadiyaa dadka qaar waxa laga yaabaa traderka markuu raadinayo counter break-giisa inuu ka raadinayo lower time frame uu ka raadinayo kabacdina suuqii uu ku ciyaara laga yaaba qofkan counter break aa raadinaysid marka aad trade high time frame change of trend aa raadinaysid waa inuu noqdaa at least 1 hour waa inuu noqdaa marka intaa waa intii habeenada dhowto oo hal meel isku keenay hal wax oo kale baa jiro xagee baa entry ka qaadanayaabaa taalla marka fiiri step by step baa isku soo xirnaa waxaa isku soo xirnay liquidity inaan soo helno supply zone-kiga aan soo helno inaan soo helno mitigation-ki inaan soo helno waa isku soo xirna soo maaha entry-gayga meesha ka qaadanaya u baahanaha entry-gaaga kama qaadanaysid supply zone-kii hadda ahaa oo supply zone-kii suuqa markuu intuu suuq ku yimaaday ama supply zone kugu dhawaaday kama qaadanaysid waxaa ka qaadanaysaa content break-aan dhacay oo biiga jabiyey ama supply zone-ka kuu jabiyey baa raadinaysaa macnaheedu waa maxay meeshu dhaqaaqa kuu jabiyey meeshu kasoo bilaabmay baa OB-gaaga ka raadinaysaa hadduu dhakadaa kasoo bilaabmay dhakadaasa OB-ga ah baa ka raadsanaysaa hadduu meelahan kor dhexdaa kasoo bilaabmayna meelahan dhexdaaba entry-ga kuu noqonayo hadda marka OB-gayga meeshan OB ii noqon kadha waa halkeen dadka qaar baa laga yaaba inay meelahan OB ka raadinayaan OB-gaaga saxda ah oo traderka ama suuqaas OB-ga ka raadin lahaa 1 hour-kayga waa OB 1 hour OB-gaas weeye halkaasaa entry-gana ii noqonayso meesha entry-gana ka qaadanaya waa halka meesha OB-ga ii noqonaysona waa halkaa meelahan u malaynayahay
halkaasaan waxaan ku qoranaya entry okay entryga xagee ka sugayaa entryga qaab noocee u qaadanaya entryga ama markuu meesha suuqa meeshaas kuu tago baa qaadanaysaa ama waxaa qaadanaysaa haddaa rabtid marka uu suuqaani waxaa dhiganaysaa limit baa dhiganaysaa limit order marka SL-kaagana waxaa dhiganaysaa structure korkiisa haddaa rabtid dhiganaysaa meeshan haddaa rabtid meesha kore xaggaan haddaa dhigatidna waa 20 xogaa bib haddaa halkan dhigatidna waxa weeye almost waa 12 bib something marka hadba kii adiga mataqaana tirir adiga ku kalsoon tahay okay marka ani ahaanteed meeshaan dhigan lahaa SL-kiina 12 bib 13 bib weliba 10 bib baa ka dhigan lahaa SL-kiga 12 bib 0.5 meelaha okay let me see marka maxaa dhacay marka inuu ii trigger gareeyay ma dhacday marka hal wax waa dhalinyarada jirta marka suuqaan oo kale markii aad qaadatid ama intrigaas kale uu gasho traderkan oo kale ha ka baqin traderkan waa trader reversal ahaan u qaadatay traderkan oo kale at least targetkaaga waxa ka dhigataa meelahan oo kale ka dhigo oo target fiican ka raadi at least lowgaan oo kale meelahan oo kale meel wax noqon ka dhaha dhow kala noqoto liquidity noqoto ama ilaa lowgaas oo kale traderka laakiin continuation ka ah okay traderkan meeshu taga aragno almost wii socda marka inta aan traderkaaga noocaas qaabkaas noocaas trade inta aan ka gudbin wixii su'aal wala weydiinayay nuudka afuro qof wax fahmaya ka hormariya hal mar su'aal ma weydiinaya استاذ هل مركز عليه ايوه قفك سؤال يعني واحد ويديني هل waxaan ku weydiinaya hada trade kan ma waxa u qaato counter trade ahaan mise bro trade ba u qaadataa adi ahaantaada trade kani waa bro trade waa trade high time frame ka qaadanayo weey oo jihada inuu isbedesho fiir bro trade waxa la dhahaa iyo counter trade waxa la dhahaa waxa weey bro trade ku waxa weey waa suuq waa inta hadda inii sheegayo kale waxa weey bro trade ku waa suuq jihadiisa guud oo caadiga ah oo hadda suuq saan ku socdaa Soomaha suuq bay ku socdo in jihadiisa guud inta ka hortimaadid ina anta seel u soo qaadatid caadi u soo raacid ka kalena waxa weeye waa ina suuq ogtahay inuu bay ku socdo ina fursado yar ay ka raadisid kanoo kale fursad yar ba ka raadinaya ina fursad yar oo seel ka raadiyo ka baxo ama suuq ogahay inuu seel ku socdo fursad yar oo bay ah seel ah waxa ka raadiyo laakiin labada qaab oo suuq ani hadda qaab inta badan kama raadiyo suuq jihadiisa ogahay inay bay tahay fursad yar oo seel ah kama raadiyo laakiin maxaa ka raadiyaa suuq ogahay inuu bay yahay fursad bay ah waa ka raadiyaa suuq ogahay inuu seel yahayna fursad seel waa ka raadin karaa laakiin suuq ogtahay inuu seel yahay hadaa fursad yar oo bay ka raadisid inta badan khasaaraha ku badanayo labadaba waa tijaabiya okay hada confirmation entry miya entrygan mise waa risk entry confirmation entry way almost entry confirmation kasta oo ku qaadan kadib waa ku qaadata traderkan sababta aan ku qaado waxa weeye suuqa anaga confirmation entry waxa iya trader kasta oo anu ka helo confirmation iskii waa maxay ko waa liquidity-ga ka bacdi waa mitigation-ka ka bacdina waxa weeye fiiri risk entry waxa in noqonaya da risk entry sameeynayo waxa weeye in suuqu marka uu yimaado markuu liquidity-ga intuu soo jabsado oo mitigation ina supply zone-ka iska dhigto ina trader meesha ka qaato kale ina dhaho trader markuu meesha supply zone-ka ah ba trader entry aho halkaas trader ka qaada ina dhaho taas risk entry noqonayso laakiin traderkan maxaa sameeyay traderkan waxa hubsaday marka horta kow ka soo helay liquidity-ga helay mitigation helay ka bacdina xagan fiir supply zone-kiga ma soo gaarin laakiin uu soo dhawaada Soomaa ma khasab inuu supply zone-kiga soo gaaro waa may adigi traderka hadii mar uu yimaaday uu tuu daatay hadana mar labaad uu sanka u soo saaray maxaa kala sugaysaa marka adiga maxaa laga yaabaa sometimes inuu SL kaaga dhufto oo traderka inta qaato inuu SL iga dhufto laga yaabaa you have to ina markaas u diyaarsan tahay SL kaaga laakiin waxaan fursad dhici ka dhaway fursad si u dhici saa u rabeen oo u dhacda traderka marka ani traderkan waxa u qaatay inay fahantaan bro ahaan confirmation entry hadda ma dheerkiisa guud hadda markii 4 hour time frame ka soo fiirsay ma uptrend buu noo ahaa mise uptrend buu noo ahaa suuqaani sida caadiga ah uptrend buu noo ahaa laakiin change of trending marka hadda up down trend isku bedela marka dhaqaaqan halka uu gaaray laakiin awal suuqii
ama meeshana iyo ama meesha hadba saa u xisaabsaday ku jirtaa laakiin suuqaani sida guud toos buu u caddaa uptrend buu ahaa laakiin maxaa ka hor imaanaya waa ku yidhi trendiga guud baa ka hor imaanaya trendiga hadda guud marka ruuliska uptrendka ku ahaa qaatay in liquidity maxaa ku qaatay laakiin liquidity baa helay kabacdi maxaa helay mitigation baa helay kabacdi maxaa hela counter break baa hela oo 1 hour ah haddaa dhaho lacagtan jihada guud anoo ka hor imaanayo haddaa isticmaalo ka waran 15 minute iyo haddaa isticmaalo that means khalada ujeedaa gelaya markaa okay macaan maxaan ku weydiinaa marka inuu liquidity-ga iyo mitigation-ka صح maxaa 4 hours ma ka fiirinaa mase 1 hour ka fiirinaa haddii maxaa idhaahdaa haddii aa isticmaalaysid change of trend guud ay rabtin inaad ka hor timaado suuqa sida saan oo kale aa dhahaneed suuqan guud baa ka hor imaanaynaa aan idhahnay suuqan guud baa ka hor imaanaynaa waa inaa 1 hour iyo 4 hour isticmaashaa liquidity-gaaga iyo mitigation-kaaga iyo counter break-gaaga weliba counter break 1 hour baa isticmaalaysaa oo break of structure-ka 1 hour baa isticmaalaysaa laakiin supply zone-ka maxaa ahaa isheen hadduu ilaa ku ron yahay liquidity-ga iyo mitigation-ka waa inaa ka heshaa 1 hour ama 4 hour labadaa waa khasab laakiin counter break 1 hour baa ka raadinaysaa ustaado hadda mitigation-ka awe mitigation-ku wax kale ma ahan waa in iraahdo waa dhaqaaqan liquidity-gan meeshaan ay hayso ma dhaqaaqa ii jabiyay weeye waa labadan dhaqaaqan ama waliba kan si sax ah waa kan dhaqaaqan ii jabiyay weeye kan uu noqon karaa xataa mitigation-ka laakiin waa dhaqaaqa ii jabiyo mitigation waxa uu in la jabsadaa liquidity-gan haddii dhacdo ka waran in liquidity-gan aan la jabsadeenba ka waran oo suuqa meeshaan uu marayo ka daato ka waran okay laakiin trend change oo biyuura ma dhicin soo maaha change of trend kala 1 hour xitaa la joogo 1 hour marka la joogo mise 1 hour marka la joogo 1 hour marka la joogo 1 hour marka la joogo u dhaca sababta ani ahaanteeda meesha aan ka xisaabsanay maxaan yiraahdaa halka 1 hour last lower low gaaw last lower high gaaw la 1 hour marka la joogo horta high new high xagee iya kan new high ma iyahay mise ma ahan waa ku yahay ma iyaha that means low high u dambeeyay aniga kana ay noqonaya aniga dhaqaaqan structure waxaas ka hooseeyo dhan xagee marka xagee xisaabsan waxa ka hooseeyo dhan corruption-ka meeshaan xisaab meelahan xisaabsan soo ha meelahaas ha soo marka la isku qabto Soomaa to hore dadku soo kala noqon hal meel marka hal meesha isa fahan laga yaabo qof su'aashu meeshaas waxa weeye dhaqaaqan haygi u dambeeyay suuqaani meeshaan kan u ahaa Soomaa ha meeshaan dhaqaaqan haygan yaa ii jabiyay haygan yaa jabiyay dhaqaaqay jabiyay ma dhaqaaqana meeshaan ka soo bilaabmay baa jabiyay mise dhaqaaqana jabiyay ay labada kale bay iga jabiyay kana jabiyay Soomaa de kana ay noqonay marka ani laas hay lowi kana ay noqonay marka waxa la sarweeyay korashka waxaas waxba aadan laga soo qaadi maayo ha adiga waxa laga yaabaa qof inuu meeshaan oo kale uu dhigto high lowiisi hadii mar high low meelahan ka inuu taalo mar hadii structure candlesku almost two candle hadii yihiin oo direction sax kan oo kale haduu yahay ka waran sometimes waxa jirta aan xisaabsan karno kale kan oo kale high low ma xisaabsan karaa ama low high mayde kaas uu meel ma haysto de ha laakiin kan wuxuu sameeyay pure structure ah in suuq intuu dhaqaaqan sameeyay oo soo nastay caadi nasasho toos ah u jeedid buu sameeyay soo ha kabacdi muxuu sameeyay dhaqaaq toos u jabiyay that means meeshana marka waxay noqonaysaa high low okay mitigation labada kale uu kan la marka mitigation marka loo fiiriyo marka high time frame marka fiirsataa mitigation kan oo hada la fiiriyo hataa si kala hataa waxa dhahay mitigation ahaan kuma mitigation wax ay dhaqaaqan dhan ba ay 4 hour ba ka fiirsanayay asafahan mitigation marka ma fiirinayo halkan waxa jooga waxa waa counter break-gii ba fiirinaya mitigation-kii laakiin dhaqaaqan dhan ba ay sababtoo ah liquidity-gii waa kan dhaqaaqa jabiyana waa kan ha hayga kaasi horeeyay soo liquidity ma noqon karo hayga hore la jabiyay kan hadda uu jabiyay hayga ugu dambeeya meesha jabiyay aad saartay ha kaas ha soo noqon karaa dhaqaaqan kali laftirkiisu uu noqon karaa mitigation laakiin mitigation marka hore dhacay ma taga meesha supply zone-kii ma taga hadaa kan kaligiis marka uu meesha tagay markiiba trade ka raadin lahaa ma hubsan wali suuqaani fiir suuq waliga haduu suuq mar yimaado fiir macnaheedu waa maxay suuq mar haduu meel yimaado area yimaado uu ka laabto oo hadana area-dii ku fashil mar labaad inuu intuu yar jabsado oo hadana meeshii area ka soo noqday that means suuqaani two times haduu meeshaan tagay suuqaani ama uu soo kala wareegaya haduu ama duu kala wareegina toos buu area dhan u dhaafayaaba meesha dhan meelaha dhan laga celinayo labada mid wax ka dhaxay malahan laakiin intuu suuq meeshaan intuu yimaaday mar la intuu meesha laga cisho hadana meesha yimaado hadana meelahan laga celinayaa ma noqonayso marka as price action ahaan suuq qofkii waa inuu labada scenario uu akhrin karaa waa inuu suuq marka halka marin uu isku degin waa inuu marka suuq mar labaad intuu meeshaan yimaaday oo hadana mar labaad meesha yimaaday
weliba fiiri fursadda kale uu sii siiyey waxa weeye intuu mar labaad yimaaday uu ka daatay buu mar saddexaad jabsan waayey meeshaan ما فاهم waa fahma maasanta ustaad si wacan marka liquidity la laakiin OB la raadinay Soomaha istiraatiijiyada marka horeysa anagu meel OB-ga waxa raadin jiray ama supply zone ama demand zone meesha dhalinyarada dadka qaar waxa jiro wuxuu sameynayaa marka u horeeyo wuxuu helayaa wuxuu raadinayaa dad qaar waxa jira raadiyo marka u horeeyo OB uu raadinayaa marka u horeeyo OB marka uu raadiyo kabacdi buu liquidity-ga raadinayaa laakiin markuu kabacdi liquidity waxa laga yaabaa sometimes OB marka laakiin liquidity-ga aad raadisid kabacdina OB-ga aad raadisid ka confirmation badan yahay waa arki doontaan dhalinyaro markaas hadaa qofkii practice gareeyo si serious ah u practice gareeyo wuu arki doonaa marka kale OB-ga qallan uu isticmaalayo ama markuu liquidity uu isticmaalin iyo sida steps by step u marin inay ka faa'iido badan tahay ama practice gareeya waa arki doonaa inay ka faa'iido badan tahay marka aad liquidity inta soo heshid mitigation aad heshid kabacdina marka liquidity iyo mitigation-ka aad heshid muxuu ahaa supply zone weliba marka aad liquidity heshid supply zone raadi marka qofka su'aasha waxa weeye qofka aniga maaragta aniga waxa uu aqaan caawa ka hor صح mitigation waxa uu aqaan ma taqaana yani iyo tusaale OB-ga meesha yaalo oo waxa soo taabta waxa يعني هدي هالمر لما تجري أو صوت تاب تجيش هذا أدي لكن واحد هذا تجيش واحد ما يكون تيجي مثل كتبية صار هذا مش يكون تيجي قوة كل هنجري هذا أو متبية هذا اللي ترانا أنا يبغى سو مش أسميه أنا يعني دقائق اللي يقول تيجي إيش بشو بروح أوقع أنا ما تجيش موف أوقع أنا أستاذ من المغلى أنا والله مغلي ها hadda mid ka daaqaaytay oo order bal marka ka soo qaatay intii hadda dhigi kara liquid mid ka hadda aan ofran kana ka liquidkiisa ka dhigi karnaa ka dhigi karnaa way tiri liquidkiga ka dhigi karnaa liquidkiga ka dhigi karnaa liquidkiga safiri ila liquidkiga wuxuu ahaa meel laba mar saddex mar laga laabtay kan hadda meel laga laabtay oo hadda dhigi karnaa ka dhigi karnaa meel dhar mar laga laabtaa hal xabo liquidity hal xabo leeyahay double top banahay yani hal mar laga saatay meesha intaan la tagin marka hore OB-ga maya double top fahmin marka waxay markaas trade kan qaadan liquidity-giisa ku qaadan miya waa kemiya tiri had markii aan trade ka qaadanayso lama rabo marka hore in aan soo helo order looga ka bacdina liquidity aan soo helo liquidity-ga waaba kan liquidity-gan guud oo for hour-ka maxaan yiraahdaa waxa isku soo xira for hour-kii iyo 1 hour-kii waa isku xira intriga qaadanay 1 hour baa ka qaaday laakiin liquidity-ga aan soo helay iyo supply zone-ka ka koreeya aan soo helay xagee ka soo hela waxa ka soo helay 4 hour baa ka soo hela liquidity-gani waa liquidity for hour ah weey ma aha kii maxaa ahaa isheen ma aha baalkii weliba xataa even 1 hour 2 hour ma liquidity qurux badan kana xataa ku noqon karo meeshaan kale ku noqon karo liquidity toos ah ku noqon kara hadba adigu liquidity laakiin that means meeshaan liquidity-gan intuu yimaadin muxuu sameeyay intuu liquidity-gan intuu meeshaan yimaado uu ka laabsoo week baa ka dhex baxay for hour marka joogto week kaliya ka dhex baxayo that means liquidity caadi uu noqonaya uu ka laabtay maxaa dhacay marka maxaa jibiyay mitigation moves ka soo waxyaalaha inta badan mitigation ka qurux badan waxa weeye sababta kan hadda mitigation kan iyo kan maxaa jibiyay dhaqaaq xoog lu sameeyay soo kanaladu ka dhex baxay abu kan la awood weyn okay liquidity marka aanu xisaabsanayo waa liquidity-gan laakiin intriga aan qaadanayo 1 hour baa tagaya marka intriga qaadanayo sababtoo ah hadaa dhaho break of structure-kayga for hour baa ka raadinaya waa igu fogaanaya marka break of structure-ka hadaa dhina break of structure-ka for hour baa ka raadinaya wuu igu fogaanaya marka break of structure-kayga oo boss-kayga saa 1 hour-kii uga helo maadaama 1 hour-kii for hour 1 hour ku dhow yahay 1 hour baa intriga ka raadsanaya intriga meesha ka qaadanayana ma aha meeshii hore ee waxa weeyaan meesha ugu sokayso oo OB sax ah ka heli karo baa intriga dhiganaya okay fursada aawado xoolo wax laga yaabaa intriga insha Allah video kan oo intriga kali ah ku sharxayna oo intriga kali ah ku soo duubaya laakiin horta kan asla fahano fursadaas waa fursad marka reversal-ka ay tahay weey marka ay continuation-ka tahayna aan raadino marka
continuation waxa weeye marka suuqaani marka uu jihadiisa uu isbedelo oo hubsado jihadiisa inuu isbedelay inaa ka raadiyo fursado seel ah okay xagee marka change of break change of trend xagee ay noqonayso halkaan kale ay noqonayso meeshaan ay noqonayso sababtoo ah highway inkastoo for hour marka la joogo halkaan ay high noqonayso 1 hour laakiin high cusub bay ka noqonaysaa laakiin for hour ka high kama noqonayso waa ina ogtahay meesha 1 hour ka noqonayso high 15 minutes ma ka noqonaysaa high because waa ina fahmi karo waa markaan dhahay low time frame mataqaana isheen trendiga ina ogaan kadib 1 hour ka muxuu sameeyaa for hour ka muxuu sameeyaa 15 minutes muxuu sameeyaa lacagtan markii meesha ay jibiso ba maxaa raadinaya fursado wax raadinaya continuation okay maxaa dhacday marka meeshan almost marka fiiri body kamilku ka dhaxba almost ana break aan ba u xisaabsan lahaa aniga ba maxaa raadinaya liquidity cusub iyo maxaa raadinaya mitigation cusub okay let's see marka maxaa markaan oo kale ma farahol ba ka raadinaya marka liquidity gan iyo mitigation kan waa kasoo degaya markaan waa kasoo degaya 1 hour ka igee marka iyo 30 minutes iyo 1 hour iyo 15 minutes ba imaanaya marka waliba I think so in halkaan oo ka dhacayba halkaan soo lagu dhigtay ma double topkaas soo lagu dhigtay ma liquidity gan double topkan waxa ka sii horeeyo suuq meeshaan uu intii ka iga siiyay hadaa sida kale xataa u fiirsid sababtoo ah halkan haday muusan gaarin inkastoo uu halkaa gaarin meesha hay taalo halkan liquidity igu xisaabi okay maxaa sugaya marka inkastoo lacagtan ba amoodid in meeshaan already uu ahaa trade entry uu ahaa halka entrygaas inay kusoo noqonayso sababtoo ah halkaasuu entry ka buuxshaba fursad markaan si saxda ah markaas weeye sababta waxa weeye halkaana liquidity meeshaan liquidity ka koreeya jiro ah kan ka hooseeya jira yani oo meesha ahaa ama meesha hadda kan kada kan u xisaabsanaysid ama kan badna ugu xisaabi sida caadiga ah meesha liquiditygaas markuu suuqaasi liquiditygaas uu jabsaday halkan xaggana entry ahaan lahayd sababta suuqaani maxaa yiri break halka uu ii sameeyay low meesha for hour ahaan ku xisaabsanay meeshaan ahayd for hour ku ii jabiyay maxaa marka raadinay marka halkaana maxay tahay halkaana supply zone bay noqonaysaa ama order block bas aad u qoranaysid marka ina marka liquiditygaas asugo liquidityga ina sugi lahaa oo marka liquidity la cuno okay liquidity markii la cunay maxaa kaloo ma horaa trade ka qaadanaya marka qof marka su'aasha weydiin marka dhowto waxay ahayd trade kaani ma continue ma confirmation trade ba mise waa wixii weydiiya jeclahay mise waa risk trade qof ku qaadanay haddii trade ka tabta inta u dhiganay ay liquidity waa helay mitigation waa helay ana counter break ama ana de marka time frame marka ay isticmaalaya ana ka sugin oo trade ka toos u qaato oo jihadi ana la hubsan wali trade ka kana kale waa risk entry laakiin qaab kale oo qaadan kara trade ka jirto oo ah ka waa risk entry soo qaab kale oo ah ina hubsado marka hore trade kaani ma bedesho maxaa ahaa isheegan change of trendings ma dhaca marka xagaas marka imaado 15 minutes baa tagaya 15 minutes marka tago baa waxa raadinaya 15 minute break of structure marka uu dhaco ka bacdi baa entry raadinaya 15 minutes marka su'aasha xaga qof ina ila socotaan in kare
حاجة إنه قناة 15 minute break of structure waxaa ku noqonaysaa labada kandhal u dambeeya oo hadda midkaan buluga iyo kaas break of structure كي والكي وماشان kaas اوكي بريك اوف ستراكشر كي مادام halka ka haysto maalintu halka soo jebiya inter ka raadinaya اوكي marka break of structure ka 15 minute ka marka laba qaab baa jira marka high time frame isticmaalaysid marka low time frame isticmaalaysid way kala duwan hadda OB giga hada meeshan ka raadiyo ka waran adoo meeshan OB dhiganaya anoo 15 minute isticmaalayo 15 minute anoo ama low ama 5 minute marka isticmaalayo OB yada isticmaalo oo markii intriga ahday markii intriga la joogo weey maaha markii soo helay supply zone kii waxa soo helay maaha laakiin intriga markii la joogo intriga ka raadinayo ka isticmaalayo waxa weeye waa midka u sareeyo waa isticmaalaan oo ah ina OB-gan u sareeyo meesha u sareeyo ka helayo ina isticmaalo hada ku laabano 30 minute ko kale ama 1 hour ko kale waxa u maleynaya meeshaas hada joogaba inay supply zone kii korkaas bi yahay 30 minutes 1 hour ku farxaanaya sababtoo ah okay kana noqonaya kana noqonaya soo jeedi marka fiiri kan confirmation trade-ka marka halkan supply zone ii aha maxaan iraahdaa supply zone-daadu qaar baa khaldanaan karo qaar baa saxsanaan karo laakiin markii aad liquidity inta isticmaashid oo trending iyo mitigation ka asla isticmaashid trade-kaasi trade sax markaan trade sax soo helaysaa laakiin markaan trade waalan baa heli karaa haka fursad halkan oo kale fursad xaq inuu asal kaaga dhufan baa laga yaabaa ana waliba 10 bib isticmaali asal igama dhufan laakiin saas oo tahay laakiin marka kaaga soo qaatay markaan difference u dhaxeeya arintu siyaa okay marka حاجة أنا حاجة إنتري كقاعدني أماني إنتري وحاجة قاعدني ماشي أسرة يصابته 15 minute ويوحى استعماله هذا استعمال لها ونهور وكله كأسرة كيا كقاعدني يصابته أو نهور كله ما يبينه تكر كله واحد الناس اللي عمل ليه باكس جراي إنك باكس كسر عم بواحد دون ثاني قف مركب باكس واحد باكس بدن أصلا واحد بدن بواني يا إلك أو بي أديكتو أو بي وعدكتي أوكي مارك إنتري حياة كسبية هكذا إنتري اللي يعني مارك أنت أسألك أخو قاعدني محمي هاي almost 7 بيبس يعني العكس أسوق مارك أنا أفضل صح أي فضها أوبي لو أوبي وماشان ترك ويفضل تركنا أنت رجل ماشان نقولنا صوبته مركز محل جانا ساعة كان لك أوبي كوه هذا أسأل أوجلسين ماشي أوه سيسو هذا باي أوجلسين ماشي أكره ساعة جانا ساعة العكس مركو يفضل مركز محيتها صوبته ترك يعني أنا هل كان أوقع عن وأنا كان الكان أوبي إنه قنيني صوبته أنا أوقع عن أو كسر أو آدي وامحي صوبته وح استعمالي مركز ولو تم فريم وي مركز لو تم فريم استعمالي هسكي ترك هل كان أكاي قاضنيو way ka badan tahay marka kale marka wayna ogaatid tareerka riskiga kuwa ay mid kale tareerka riskiga kuwa ay ka kale wayna og tahay marka tareerkan xakana kuma tareerkii hore waa inii sheegay xagee target ka dhiganaysaa waa ku meelaha target doon ma dhiganaysaa tareerkan targetada ka dhiganaysid waxa weeye waa meelahan oo kale lowyadan oo kala dhiganaysaa meelahan oo kale 15 lowgan oo kale meesha low weeyso TB1 ka oo kale meeshan oo kale ama meelahan oo kale kala baxaysa TB2 gana ilaa meesha u deesanaysaa
let we see marka والعقد انت من اللي فاهمه انت من اللي فاهمه انت سيفي لو فاهم waxa macnaha ka wato ah in isku soo xiro liquidity mitigation supply zone ka bacdi entry ma fahanteen si wanaagsan ustaad okay marka قول لي hal tusaale asna قول لي bixinaya hal su'aal ku weydiin lahaa sheekh wadiin horta OB aanan arkin liquidity kadib markaas raadiyaa markaas in noqdaa macnaha trade-kaas inuu shaqeynayo laakiin liquidity ku xisaabtama laakiin wax ka hormariya OB ka hormariya okay OB ka hormarisa laakiin waa ku xisaabtama liquidity-ga marka adi trade-da ku qaadatay marka win rate fiican ma ka hesha saas ku shaqeysaa bas okay marka as long as waxa adiga ku shaqeynaya win rate fiican ku haystid mataqaana that's all liquidity waa isticmaalaa marka confirmation-keeda ku jiraa laakiin waxaa ka hormariya OB-ga inaa helo kadib baa liquidity markaas sii raadiya haddaa ka waayo iska daya trade-kaas okay may mar haddaa muhiimadu qof dadka dhalinyaro wax inta badan xawaa ku rarsan waxa weeye waxaan horta adiga ma ku haysataa win rate ma ku haysataa haddaa shay win rate fiican aad ku haysatid that's enough kaa badan adiga wax kale u baahan tahay malahan hagaan oo kale waxaan tusayaa meelahan oo kale hadda fursad hagaan wax ka arkaa fursad seel caadi ah oo wixii dhan shuruucdan dhan muujinayso suuqan jihadiisa guud waa maxay suuqan hadda jihadiisu sel waa sel jihadiisu waa sel waa down trend soo okay down trend wey waa haysanaa soo maha marka lacagtan su-aasha intriga aad raadinayno marka waa inaad su-aasha isweydiisaa marka hore intriga aad raadinaysid waa intri nooceeya intriga aad raadinayo ma aha intri reversal ah oo change of trendigan selkan suuqan seel ku socdo bay ma raadinayo suuq wax ka hor imaanaya ma raadinayo waxa raadinaya waa maxay trade noocan oo kale marka raadinayo waa suuq waa trade maxaa ahaa isheen jihada selka ah okay marka waxa kale marka inta helay inta soo ogaaday waxa raadinaya wali fursadan sidii saxda ah halkaan ahayd قولي marka qof ka soo golli isticmaalayo hal mid oo kula talinaya low time frame-ka ugu yar oo geli kadib ha noqoto maxaa ahaa isheen hadduu ilaa ku reeyaa 30 minutes ama 15 minutes 15 minutes wax ka hooseeya golli ha isku aadin xagga marka maxaa ka haystaa marka soo horta marka let we see suuqan maxaa nidhi marka u horey waa inaad ka helaa waa inaad liquidity helaa soo nima dhihin kow maxaa hela marka kow liquidity waa hela sooma liquidity-ga marka mitigation markuu dhaco mitigation-kiga markuu dhaco korkeyga maxaa marka meesha ii koreyso ma ka heliyaa supply zone ma ka heliyaa ha waa ka heliyaa halkaana supply zone ya weliba supply zone-ka 1 hour marka la joogo soo qurux badan baa sii heliyaa supply zone 1 hour marka la joogo kana ay noqonayo kanalkaas dhan ba ay noqonayo sababta aa golliga u leeyahay 1 hour-ka uga raadinay supply zone-ka aana kuwa kale 1 hour-ka oo mar 15 minutes-ki kan 1 hour sababtoo ah golligu confirmation marka galaysid trade iska qaada ma aha waa inaa confirmation aad u siiyo sababtoo waxa oo suuq oo volatility uu leeyahay volatility aad u badan marka halkan maxaa ka haystaa marka halkan waxaa ka haystaa supply zone liquidity marka waa helay mitigation waa haystaa supply zone waa haystaa
okay maxaa iga sii dhiman marka intaan markaa helay intaa tirar ku qaadan karaa intaa liquidity haddaa helay mitigationkiina aa helay supply zone aa haysto tirar ku qaadan karaa intaa may tirar kuma qaadan kara intaa waa inaa helaa maya konton tirada inaan haystaa waa inaa control break of structure aa helaa okay break of xagga marka lacagta halkaas kasoo noqoto soo maha zonkiga way tagtaa break of structure-kii xaggee ah break of structure-kii kana ay noqonaya ogtiin baan uleynaya okay break of structure-kii waa haystaa halkaan break of maalinta suuqa halkaan uu jabsado kabacdi waa inta raadinayaani maxaa dhacay marka inkastoo si qurux badan uusan u jabsan hadduu jabsado maxaa haystaa marka break of structure marka laakiin ustaad waxaan ku weydiinaa hal su'aal kaa dhex galo break of structure kama waxaa la dhigaa hadda waxaa dhigatay kandalka buluga oo bayga ah beerishka cad salkiisaa dhigatay kan midka fiiqa ma dhigan kara miya oo salka xaggaan oo kale ma dhiga tartamaya kaas lama dhigi kara miya halkaan oo kale hadda suuqan kandhalada u badan average-ka ah meeshaan kandhalada average-ka u badan meeshaan celinayo kandhaladaani waa meeshaan laakiin kanalkan waa hal kandhal iska dhex baxay wey asagu ma kandhal macna ii sameynay maaha adiga xataa waa dhiga aduu haddaa laakiin adiga ahaantaada fiiri khasa maaha aniga sidaan oo kale inaa isticmaashid oo ah inaa aduu halkan waa dhigan ka dhaadaa rabtid haddii meeshaan kale u aragtid break of structure halkan kuu tahay kandhalka wiiga markii lagu jabsado kuu tahay oo raadinaysid confirmation aad u xoog badan sii raadinaysid waa dhigan ka dhaa adiga backtisic markaa samaysid haddii aa aragtid inta badan in meelahan oo kale uu break of structure ahaan u xisaabsanay suuqu ama meelahan oo kale labadaba adigu markas backtisic garee kii marka adiga kuu xoog bato isticmaal marka laakiin ani ahaanteeda break of structure-kii halkaana dhigan lahaa halkaasaan ii ah break of structure maalinta halkaa jabiyo kabacdi baa tira raadinaya marka maxaa hela marka break of structure baa hela marka markaas ayna xasuusiyo maxaa kow helay kow maxaa hela kow liquidity baa hela kabacdina supply zone baa korkayga ka hela kabacdi maxaa helay mitigation move-kayga hela marka intaa helay kabacdi maxaa raadiyey marka maxaa sugo waa sugaya tan ma raadinaysid tan waa sugaysaa boqolkiiba 80 suuqa marka aad la soconaysid waa intaan laakiin la rabo inaad sugtid waa kan qof markuu suuqa halkan yimaado oo halkaa marayo buxuslinu suuqa ama ku dhaafa uu iska seel gareynayaa xoogaa waxaa qaadayo muxuu ahaa isheen emotionski baa qaadayo ma ogtaa lama rabo marka in emotion qaato waa inaad suuqa marka aad gelaysid confirmation ku gashaa waxaa aaminsanaha haddaa shuruuc inta aad samaysatid 10 trade aa shuruucdaada ku qaadatid si saxda ay tahayna aa ugu qaadatid waxaa hubaa boqolkiiba boqol inaad successful aa noqonaysid waa shuwa laakiin dhibta ku jirtaa waxay tahay emotionkaagu mar kasta ay kaa tirabataan dhibaatada qofka in emotion ka tirabataan waa qorshe la'aanta insha allah zuwankeena ka mid tahay habeenna blanka iyo qofka qorshe la'aanta inuusan qorshe la'aan u noqon marka break of structure-kayga waa helay xagee dhiganaya marka aniga muxuu ahaa isheen xagee dhiganaya OB-gayga ama bahalkayga entry candle-kayga ama entry OB-gayga entry OB-gayga waxaa ii noqonaya halkaan oo kale candle-kaasa dhiganaya kan ay noqonayo OB halkaasa waxaa dhiganaya asalkaygana maxaa dul dhigayaa kanalka korkiisaa dhigaya targetkii xaggee noqonayso target xaggee noqonayo at least lowgan at least markaa yaray lowgan ay noqonayo okay marka atbc marka suuqa cusub
even if xataa haddaad 30 minute